munaasabad ballaaran oo xilka lagu kala wareejinayay gudoomiyihii hore xisbiga kulmiye iyo gudoomiyaha cusub ee dhawaan loo soo magacaabay ayaa ka qabsantay hotel Sita Palace ee magaalada Burco. munaasabadani ayaa waxaa ka soo qayb galay taageerayaasha xisbiga kulmiye, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye Maxamed Kaahin, gudoomiyaasha xisbiga ee gobolada Saaxil Saraar, duqa degmada Burco, barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer, barasaabka gobolka Sanaag, cuqaal waxgarad haween iyo marti sharaf kale. waxaana munaasabadani ka hadlay taageerayaasha xisbiga kulmiye, barasaabka gobolka Sanaag, duqa degmada Burco, barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer, haween iyo marti sharaf kale. waxaanay ammaan ballaaran dusha ka huuyeen gudoomiyihii hore xisbiga kulmiye Sahlaadan, waxaanay dardaaranna u jeediyeen gudoomiyaha cusub ay kula dardaarmeen in sida ugu wanaagsan uu ku hago xisbiga. gootis anigu ma aha sahal dee la sagooti maayo, waa xisbiga goostambeedkiisii waxa weeyaan xubnihii firfircoonaa 10 sanadood ayuu xisbiga gudoomiye waa sahal. waxaan u mahad celinayaa gudoomiyihii hore, waxaan soo dhaweynayaa gudoomiyaha cusub soo gaarsiisay halka aad ku wareejinayso xilka. aad iyo aad baan kugu hambaleynayaa, hambaliyaan ku leeyahay sahalow, hambaliyo. xisbiga kulmiye waa fartaan qura lama maxay toolay kala reebi karo. rag iyo dumar isku siyaasad baanu nahay, isku af baanu nahay, isku aadin baanu nahay, cidna ka dhaxgali kartaa ma jirto. bilaawantay amaantiis adigu haddaad xasan mataan haydo oday ahayd, guddiga xirka iyo dhulkana odayba wahay, maanta wax ka sheegaaga iyo caydaada iyo canjarafayntaada maanta bilaxmaysa. waa saacaddii lagu baxsan jiray ninka ragga. anagu ilaahay waxaan kaaga barye in ilaahay xilkaa kuwaas sugaya. halkan baynu dagaal baynu gelaynaa. dee waxa weeye halkaa adoo hore xisbiga u ahaa oo laftaadaanu soo wada shaqaynay, haddana inaad ururiso oo sida xisbigu ahaa iyo guuluhu keenay aad sideed halkeeda aad ka bilowdo ayaad ninagaa doonayaa. waxaanu ilaahay kaaga baryaynaa in ilaahay xilkaa ballaaran ee laguu dhiibay ilaahay kugu asturo. waxaan ku ilaahay subxaanahu wa tacaala kaaga baryayaa xilkaa in ilaahay uu kuu fududeeyo oo ilaahay uu kugu asturo. waxaan runtii hubaa inuu kartidiisii iyo awood uu ku hogaamiyaba uu leeyahay iyo waayo aragnimaba. aad iyo aad baan runtii idinku wada mahadcelin. waxaa iyaguna madasha ka hadlay gudoomiyihii hore xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer Sahlaadan oo sheegay inuu soo dhaweynayo gudoomiyaha cusub lana shaqaynayo, halka gudoomiyaha cusubna uu ka markhaati furay hogaamintii hore ee uu hogaaminayay xisbiga. xilka xisbinimada ee gudoomiyenimada xisbiga waxaa lay dhiibay 2005 ayaa laygu wareejiyey, aniguna waan aqbalay. maantana waa 2015 tobanka sanadood ayaan gudoomiyaha xisbiga ee gobolka ahaa. hawsha aan ka soo sheekeeyay ama garabada aan ka soo sheekeeyay ayaa ilaahay marka laga yimaado iyo mahadnaqiisa iyo sababta uu ilaahay wax kasta uu isagu ahaysiiyo marka aan ka imaado intaasa uu sabab ahaa inaan tobanka sanadood ligiinba madaxda xisbiga ee heer qaran ayagana waxaanu leenahay waa inaad si fiican noola shaqaysaan. aynu mar walba haddii ilaahay ka dhigo sidii aad qoladii hore oo si ka fiican baan rabnay inaynu u wada shaqayno. aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa, kulligiinba waad mahadsantihiin. ugu dambeyntiina waxaa halkaasi soo afmeeray gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye Maxamed Kaahin oo ka hadlay guulaha uu gaadhay xisbiga kulmiye iyo xil wareejinta labada gudoomiye ee gobolka Togdheer. oo xisbigu mucaarid soo ahaa ayuu ka soo dabaashay hawlihiisii. in 5 sano dambe xisbigu xisbul xaakimka ahaana maxaan ku leedahay sahal xilku hayay. xilkana marba qofku meel buu ka qabtaa. gudoomiyaha cusubna waan ku soo dhaweynayaa xilka. waxaan leenahay Allah ha kugu asturo. ninkii jiray wuxuu yidhi wariyaan anigu gini runa baan hayaa. kaarkaa runtaa baynu qaadanaynaa. gobolka Togdheer hay sababno gobolada kalena waan faraynaa. waxaan leenahay dadku ha qaato kaarka aqoonsiga ee wasaaradda dakhliga ay maamulayso iyo kaarka codbixiyaha ee komishanka doorashooyinku. waa Khadar Cabdirasaaq Saleebaan, Khadar Hanad, shabakada caalamiga ee Hadwanaag News, magaalada Burco.